ugu horeyn waxaa mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala oo noo suurtageliya guud ahaanteen saaka halkan inaan isugu nimaado marka xigtana waxaa mahad iska leh in allaala iyo intii inoo suurtagelisay inaan halkan isugu nimaado oo adinku aad guud ahaan intiinaan halkan fadhiisaad ugu horeysaan waxaan horta awalan guud ahaan rabaa inaan idinku bogaadiyo idinkuna dhiirigeliyo iskuna dhiirigelino guud ahaan shaqooyinka kala duwan ee aan ku jirno oo hayno dadkeena oo hayno dalkeena oo bixinayno waxa ugu qiimaha badan waxa qof bini aadan uu bixiso oo ah nafteena iyo dhiigeen runtii ma jiro go'aan ka wanaagsan oo qofka bini aadanka uu qaado lahaa inuu ummadiisa u adeego ayadoo aanay jirin waxa uu ka leeyahay oo interestiya oo shakhsiya oo danihiisa gaarka ah oo ka baxsan danta qaranka iyo danta dadka go'aankaasu marka waa go'aanka ugu wanaagsan oo qofka bini aadanka uu qaado lahaa kii ugu wanaagsanaa wax kasta oo shakhsiyadaada kugu saabsanaa inaad inya gadaal iska dhigto soo baxdo go'aansato naftaada iyo dhiigaaga inaad u bixiso ummadaada inaad u adeegto qarankaaga wax kasta oo aqabadaada oo bulshadaada heesta oo ummadaada ku xeeran inaad go'aansato inaad adigu awoodaada iyo aqligaaga adigu dul qaado waa go'aankii ugu wanaagsanaa oo qof bini aadan uu qaado lahaa mar haddii aan go'aankaas qaadano marka maxaa ka dhalanaya qofka go'aankaas qaata marka waa inuu la yimaadaa sifooyinkii looga baahnaa waa inuu la yimaadaa waa huba daacadnimo horta qalbigiisa way ku jirtaa haddaan daacadnimo jiran marka horeba go'aankaas ma uusan qaateen laakiin haddana tartiibaaday u baahantaa mar haddii waxa aad raadinayso ay yihiin dantii bulshada waxaa kaa hor imaanaya caqabadaad badan culaysyo badanaa ka hor imaanaya waxaa kaa hor imaanaya cid allaale iyo ciddii diidaneeday danta qaranka waxaa kaa hor imaanaya wax allaale iyo wixii cadow ku ahay ummaddan waxaa kaa hor imaanaya culaysyo meeshaas marka waxay u baahan tahay dulqaad waxay u baahan tahay hal adayg waxay u baahan tahay go'aan waxay u baahan tahay samir fara badan waxay u baahan tahay mar kasta yoolkii shalay aad u soo gashay ciidanka qaranka aad u soo gashay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad ugu soo biirtay ilaaliyaasha qaranka aad u go'aansata naftaada iyo dhiigaaga inaad bixiso mar walba inaad xusiisnaato mar kasta oo culaysyo kula soo gudboonaadaan oo caqabadaad aad aragto inaad tiraado maxaan horta culayskan u maraya sababtaan maxaan shala u soo galay sababtaan yoolkii aan shala lahay ma gaaray maya sidaas daraadeed intaana waa soo gaartay yoolkii aad laheedo shala ciidanka u soo gashay intaana ma aadan gaari waa inaan ka miro dhaliyaa markaan ku adkaystaa saraakiil xigeennada alifleyda iyo dableyda qiimaha badan oo halkan fadhiya ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan la dagaalamaynaa cadow argagixiso ah oo gudaheena ku jira waxaan la dagaalamaynaa dadkeennii qaybo ka mid ah oo xumaaday waxaan la dagaalamaynaa dadkeennii qaybo ka mid ah oo la geliya afkaar qaldan iyo fikirro guracan oo ay ku dilayaan hooyooyinkood iyo aabbayaashood way ka duwan tahay marka cadow bannaanka nooga yimid oon la dagaalamayno way ka duwan tahay sababtoo ah waa cadow gudahaaga Soomaaliya marxalada kala duwan ay soo martay jiritaankeedu intuu jiray waxay soo martay gumaysiyo kala duwan oo duulaan ku ahaa ummadan waxay soo martay dagaalo kala duwan oo dawladda bannaanka uga imaanayay waxay soo martay marxalada kala duwan
inta ay dawladnimada lahayd oo dawladnimadeedii dhisneed iyo inta ay dawladnimadii ka horeysay oo lagu jiray gumaystihii iyo waqtigii hore lagu jiray marxalada kala duwan oo dagaal ay soo martay dagaalka maanta aan ku jirno ka uu ka duwan yahay muxuu uga duwan yahay awalan horta argagixiso caalamiyahan la dagaalamayna waa dambiilayaal adduunka isaga yimiday cid kasta oo caalamka dambi ka soo gashay oo ummadeedii dambi ka soo gashay oo meesha ay joogto ku noolaawaysa inuu muslim yahay ma ahan maanta kuwa argagixisada u dagaalamaya aragtidooda aragti islaamiya ma diin islaamay ku salaysanta diinteena islaamku waxay noo sheegaysaa dadka muslimiinta inaad layso waa kafar horta ay ku gambanayaan ee gaal raadimayaan diin islaamna kama ahan waxay dadkeena ku gumaadayaan laakiin waa qolo wax ma garata ah oo cawaana oo iimaan lahayn oo iimaan laawayaala oo ummadoodii lagu gumaadayo sababta loogu gumaadayana aan aqoonin kuwa kalena waa qolo gacmo caalamiyuhu ku jiraan oo halkan loo soo diray oo qoladaas u ah mashiinki dhaqaajinaya u ah waa intaas ayaa horta dalkeena isku haysata taas waxay ku tusinaysaa marka aragtida guracan ee dadkeena iyo dalkeena loola yimiday haddaan gara weyno marka waa nasiib daro haddaan ka hortagi weyno waa nacasnimo runtii ma aanay ahayn maanta inay nala soo gaaraan dhowr iyo 10 sano ugu dambaysay ayaa nimanka lala dagaalamay waa ogeedeen waqtiyada qaar meel ay aad u liitaan ayaa la gaarsiiyay laakiin nasiib daro waa ay naga hoos baxdo waqtiga inaan dhameystirno maantana macnaheedu ma ahan inay bariyihiin way liitaan markaan saas leeyahay sideedaba ama badnow ama yaraw ama dad badan hayso ama dad yar hayso laakiin qof kasta ee wada baadila ku socotaaba qof liita mar haddii waxa aad ka shaqaynayso iyo waxa aad wado aanay wada haqa waafaqsanayn mashruucaagu inuu sii socdo oo meel fog gaaro way adag tahay deadline uu leeyahay meel uu ku siman yahay uu leeyahay laakiin maxay u baahan tahay dad aqiidadooda iyo islaamnimadooda iyo ummadnimadooda ay ka go'an tahay oo ficilada noocaas dadka ka shaqeynaya ka hortagay u baahan tahay inta ma isla garan maanta waa ogtihiin nimanka argagixisada ajaanib kala duwan ku jirta dalka miyayna la leeyihiin dadka miyayna la leeyihiin waxaan naga la rabaa marka ciidamada qiimaha badan mar haddii aan wadadii haqaheed ku taaganna mar haddii aan dalkeenni iyo dadkeenni u adeegayno mar haddii qarannimadeenni meesha ay maanta taaganta aan arkayno mar haddii aan ognahay mustaqbalkeenna jiritaankeenna iyo jiritaanka dadka Soomaaliyeed inuu ku xiran yahay maantay wadada aan u jeexno dulqaad badana nagala raba adkaysi badana nagala raba qof kasta ee koonka Allah subhanahu wa ta'ala uu keenay qof noolaanayo oo ilaa cimrigiisa sii jira miya jira deadline aad leedahay meel aad ku egtaa mana dhaafi kartid cid ku dhaafi kartana ma jirto waxa ugu wanaagsan marka wadada saxda anigoo ku taagan waxa ugu horeeya ee noogala baahan yahay maadaama dhamaanteen aan dad muslimiina xiriirka Allah subhanahu wa ta'ala horta inaan hayno waxa ugu horeeya taas horta inaan ku taagnaan midda labaadna ummadeena mas'uuliyadan u qaadno